ilaalo ka tirsan nabad-sugidda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka loo yaqaano Duufaan oo la shaqeynayay xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo horey uga mid ahaa saraakiisha hay'adda NISA ayaa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Sida aan ogaanay, ilaaladan ayaa fasax la'aan uga dhoofi rabay garoonka iyaga oo ku baxayay qaab ciidan booliis ah gaar ahaan qaybta daraawiishta kuna hubeysnaa qoryaha fudud. Wararku waxay intaa ku darayaan in labadan askari ay ka mid ahaayeen ilaa 5 askari oo hoos tagaysay nabad-sugidda qaybta guud ee gobolka Banaadir u siiyay xildhibaan Cabdullaahi Kulane inay ilaaliyaan amnigiisa. Ilaalada ka tirsan Duufaan ayaa waxay xildhibaanka sii gaarsiinayeen sida wararku sheegayaan ilaa inta uu ka helayo ilaalo ciidan booliis ah. Xildhibaanada ayaa waxaa loogu talagalay in amnigooda ilaaliyaan ciidan booliis ah oo uu xaq u leeyahay oo loo ansixiyay xilligii baarlamaankii 9aad ee dalka. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka iyo maamulka garoonka oo ku aadan ilaalada ka tirsan Duufaan ee la xiray, kuwaas oo wararku sheegayaan inay safar u ahaayeen gobolka Gedo. Sida ay ku waramayaan ilo wareedyo kala duwan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa ka hor intii aysan ka duulin maanta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho una socdaalin dalka Imaaraadka Carabta amray in ilaalada laga wareejiyo xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo horey u soo noqday madaxa shaqaalaha ee hay'adda NISA. Saraakiisha NISA ayaa sheegay in ay haystaan amarka agaasimaha oo bixiyay ka hor inta uusan raacin madaxweynaha, kaasi oo ah in dhammaan ilaalada laga qaado xildhibaan Kulane. Lama oga waxyaabaha arrintan ay salka ku hayso, iyadoo xildhibaankani oo xasaanad leh ay hay'adda NISA ilaalada uga qaaday. Isla markaana horey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay inaysan jiri doonin argoosi siyaasadeed oo ay sameyn doonaan, laakiin tallaabadan ay qaadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha NISA Mahad Salaad ayaa ka dhigan inay hadda bilaabatay argoosi siyaasadeed, iyadoo ay hadda cabsi muujinayaan mas'uuliyiintii aad ugu dhawaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, qoraal uu goordhow bartiisa gaarka ah ee Facebook uu ku soo qoray xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane ayaa waxa uu cambaareeyay falkii maanta ay kula kaceen saraakiisha hay'adda NISA. Qoraalka xildhibaanka ayaa sidan u qornaa: in lala noqdo ilaaladeena gaarka ah nagama hor istaagayso inaan shaqadeena gudano, namana cabsi gelinayso, ayuu bartiisa Facebook ku soo qoray. Haddaba daawade, sidee u aragtaa in xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo xasaanad leh laga qaado ilaaladiisa gaarka ah?